كرتدادا سيكي in the villain ومليسي كراح السنايو hey my brother the one and only Brown Wakna hey halkii dadkii hadda ku barnaa Yurub gaarsi loo wado waa ku taaganaa Armena abo Armena gaarigaan u saarnaa waa cabsaday kaas u koray hadda ku soo qabtay ujeedano war ostri CKC oo sharaf leh igu amaan ninka amaan waa baahnaa duco u baahan yahay isagoo baadiyaha Hargeysa gaari baranaya arkay ilaahay leys ka fududeeyo duco u baahan ka soco assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad adduunka ka joogtaan ku soo dhawaada barta YouTube-ka aan ku leeyahay Burhan Channel daawade waxaan idinka raali gelinayaa dhowrkii cisho aan hawada ka maqnaa habeen walba waxaad ka daawan kartaa barteena YouTube-ka aan ku leenahay ee Burhan Channel wararkii ugu dambeeyay ee la xiriira arrimaha bulshada dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee maalintaas ka dhacay adduunka gaar ahaan Soomaaliya daawade inta uu socdo barnaamijkeennana waxaad ku daawan doontaan dagaalkii u dhaxeeyay CK iyo Shiine Culey ayaa dib u qarxay waxaan idin kaga hayaa xog fara badan oo ku saabsan arinta ka dhaxaysa CK iyo Shiine Culey CK gaari ma kaxayn karaa oo darawal ma yahay maxaa ka jira hadalka Shiine Culey ee ah in CK dawladka magaalada Hargeysa gaari lagu barbarayo daawad haddii ay ku tahay markii kugu horeysay oo muuqaalkeena ku soo gaaro waxaan ka codsanayaa in aad marka hore muuqaalka like saarto aadna ka mid noqoto kumanaanka kun ee ku xiran barteena YouTube-ka mar kale ayuu dib u bilowday waxaana sabab u ahaa markii habeen hore baraha bulshada la soo geliyay in CK uu gaari kula gadoomay dawladka magaalada Hargeysa isla markaasina uu dhintay CK ayaa dhawaan waxa uu ku joogay safar magaalada Hargeysa saacado kadib ayaa waxa ka soo hadlay CK oo waxa uu cadeeyay in uu nool yahay aysan jirin wax soo gaaray keliyana ay ka dambeeyaan dad ka xun horumarkiisa hadalka CK ayaa waxa uu ku bilowday sida tan dhamaantii meel kasta adduunka ka joogtaan waa CK oo idin leh maalin wanaagsan subax wanaagsan habeen wanaagsan wax kasta oo ay ku tahay wanaagsan fiidiyogan wuxuu si toos ah ugu socdaa dadka aniga samaanteyda iyo wanaagayga jecel dadka Soomaaliyeed ee walaalahayga ah ee ugu xiran ee CK family hadda ayaa waxay soo wacay familkayga qoyskayga baarti kamid ah oo laga naxiyay walaalkay ayaan laba dhagiisu ku maqlayay run ahaantii suuqa waxay galiyeen CK baa wax la gaaray oo kooma ku jiray iyo wax aynkaas oo kala Allahu musta'aan ana hadda ugu cusbo in arintan oo kale ay dhacdo oo social media waxaas oo kale ay soo dhigaan wax ay cusub maaha dad baa waxay moodaan waxaas inay ku xumeen u sameynayaan amaba ay views ku raadinayaan adee wax kasta ay kala gol leeyihiin kulli iyagu ma dareemi karaan waxaas ay sameynayaan dhibaatada ay dhalin karaan hadda ayaan le dhagiisu ku maqlayay markii gabadha walaashay ay soo waceysay ay leeyahay dhabarka ay kala go'an sarjooga ka dhacday durbo way xanuunsanaysay bal ka waran haddii qofka waxa sameeyay uu sabab u noqon lahaa xaraami kulli wax kala maaha laba baa u geynaysa inay views ka raadiyaan iyo inay isleeyihiin de waa ku xumeynaysaano oo maaragtay qalqal iyo waxba ku gelinaysaano waxaan u sheegayaa qof kasta oo muuqaalka soo gaaray walaashay xitaa gabar baa ka horeysay oo iyadana walaashay Awsris la deganahay Shankron oo halkan ka salaamayo ayadoo naxsan iyadana ay soo wacday aniga marka hore wax xasaas ah kama soo qaadin ba in yar kadibna hadana walaala soo wacday oo imika waata soo wacaysa oo koolkeedu soo galay ilaa hadda soo wacaysa dhinaca kale Shiine Culey ayaa isla markiiba waxa uu ka soo hadlay safarka CK uu ku tagay magaalada Hargeysa waxa uuna sheegay in gaari lagu barbarayo dawladka magaalada Hargeysa muuqaalka uu Shiine Culey uga hadlay arintaas waa kana baldaawo CKC oo sharaf leh igu amaan ninka amaan waa baahnaa duco u baahan yahay isagoo baadiyaha Hargeysa gaari baranaya arkay ilaahay leys ka fududeeyo duco u baahan ka soco kiin CK dawladda jir dhulkiisa ku raaxaysanaya brother maxaad leedahay miday hay libaaxi oo Hargeysa jooga hay libaaxyada geeskan la jooga ma wadinay alaabta sheekeen sameeyaa money is nothing brother code صح waxaan anoo qoslayaan sameeyaa meesha ka imaadana ceerka ma qaato
iska dhacdaa adoo 50 years old jiro inaa ceer qaadatid dada xitaa caruurtooda waxaa ka dhigisay lacag u sameeyaan ama uslayaa sameeyaan kaasi wuxuu ahaa Shiine Cole oo ka hadlay safarka CK ee Hargeysa laakiinse daawade sida waxa la idinkugu sheegay xaaladdu way ka duwan tahay 27 December sanadkii 2019 ayay ahayd markii uu safar ku yimid CK dalka Malaysia waxaana loogu soo dhaweeyay si aan caadi ahayn oo waxa soo dhaweeyay dhammaan YouTuberada iyo shacabka ku nool dalka Malaysia. guys aad u mahadsantiin halka maanta waxa ku soo dhaweynayna walaalkeena qaali awda taqaaniin CK oo aad u jecelnahay maanta waqti badan halkan gelin asaga soo dhaweyno aad u mahadsan yahay welcome to Malaysia. السلام عليكم سعيد كثير السلام عليكم وعليكم السلام دمانتينا مقعي كمال واي والمكان وحان بأركب عصو برانك سمالا والله والله انت الجوال معلي ده لفع يدي من انت الجوال ادريش بدي مقهورك لاعب كان جوال ممكن مراد برك waxaan ku leenahay soo dhaw saaxiibkay thank you لاعب كان arwaa intii wuxuu idhaa 25 kiilo inaan ama saarsadaale brother welcome to Malaysia thank you brother thank you so much السلام عليكم وبركات ويلكم أنطونيو سنغاباي انترناشونال ايربورت سعيدكي سيكي وسودوينها والله بالله laba habeen imaanshihiisa Malaysia ayaa waxa uu gacantiisa ku kaxeeyay gaari nooca raaxada ah oo uu lahaa Maxamed Saciid Saxaab waxaana gacantiisa ugu dhiibay anigan hadda idin la hadlayo Malaysia wadida gaariga ma ahan mid aad u sahlan oo qof walba iskama kaxeyn karo waa magaalo aad u saxmad badan oo waliba CK waxa uu gaarigu ku dhex waday caasimadda dalkan Malaysia oo lagu magacaabo Kuala Lumpur CK hadii uusan darawal ahayn uma suurtagali lahayn in uu gaari ku dhex kaxeeyo dalka Malaysia xitaa hadii qofka uu darawal yahay way adag tahay markaas asagoo ku cusub dalka Malaysia in uu gaari gacantiisa ku kaxeeyo maxaa yeelay sharciyada wadanku uu ka yimid iyo dalkan isku mid ma ahan CK xilliga uu gaariga kaxeenayay ayaa waxa uu watay driver license oo uu ka qaatay dalka Australia oo uu ka haysto dhalasho waa kana cadeynta muuqaalka CK oo gaari ku dhex wadayo caasimadda dalka Malaysia CK in the building Malaysia كراحسنايو my brother the one and only brand wakna hey halkii CK hadda ku barnaa Yurub gaari si loo wado waa ku taaganaa أرمانا أبو إيه أرمانا قاريان وصارنا واحد صديقاس وكوري أبو كساقرتي وجد أنا daawada hadii ay ku tahay markii kugu horeysay oo muuqaalkeenu ku soo gaaro waxaan ka codsanayaa in aad muuqaalka like saarto mahadsanid